dhammaantiin waa idin salaam daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii gobolada Soomaaliya maantana waxaan ku soo qaadan doonaa gobolka Gedo daawasho wanaagsan haddii aan ka bilaabo hordhaca taariikhda gobolka Gedo sida ku xusan taariikhda dalka Soomaaliya gobolka Gedo waxaa la aasaasay 80-maadkii waxaana uu xad la leeyahay deegaanada kala ah Soomaali galbeed wadanka Itoobiya uu ka haysto dhulka Soomaaliyeed iyo gobolka cirifka koonfureed ee NFD iyo gobolka Boqol gobolka Baay gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose waana gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya ee ugu xuduudaha badan gobolka Gedo hordhaciisa haddii aan halkaa idinkaga sii wado gobolka Gedo waxa uu dhacaa koonfur galbeed Soomaaliya Gedo waa gobol ka mid ah gobolada ugu baaxadda weyn Soomaaliya wuxuuna masaaxa ahaan ka agdhow yahay gobolada Bari iyo gobolka Mudug waana gobolka kaliya ee ka mid ah gobolada Soomaaliya ee xadka la leh labada dal ee Itoobiya iyo Kenya inkastoo labada dhul ay xuduud la leedahayba uu yahay dhul Soomaaliya ka maqan waxaa dega qabiilo badan oo Soomaaliyeed sida Dir iyo Digil iyo Midifle iyo Daarood qabiilada Soomaaliyeed ee dhulkaas dega waa qabiilo ku wada nool si nabad ah iyo inay ahaadaan dad isqaraabaysto oo haddii Ilaahay ku run yahay dhulkooda nabadaysta horumarkooda ka shaqeeya Gedo waxay ku jirtay deegaanada Soomaaliyeed ee nooc walba u dagaalamay xagga gumaysiga dirirkii marka loo fiiriyo ganacsiga iyo degmooyinka gobolka Gedo markaana haddii aan fiirino nolosha dhaqan-dhaqaale ee gobolka Gedo waxa uu ku saleysan yahay laf-dhabarka xoolaha nool iyo beerashada Gedo waa gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya ee hodanka ku ah beeraha xoolaha nool inkastoo beeraha aysan aad u badnayn waxaa intaas gobolka Gedo u dheer isaga oo dhaca xuduudo in ganacsi u kala goosho wadamada xarun dhexe uu u yahay magaalooyinka Baardheere iyo Luuq beled Xaawo ayaa ugu dhaqdhaqaaq badan xagga ganacsiga gobolka Gedo haddii aan markaan fiirino xagga waxbarashada gobolka Gedo waxaa ka dhisan nidaamyo waxbarasho walow aysan jirin dallad midayso oo guddoon waxbarasho iyo heer degmo ama gobol ah magaalooyin madaxa degmooyinka gobolka Gedo sida Baardheere Garbaharey iyo Luuq iyo Gaana Garab waxaa jira dugsiyo waxbarasho oo leh heerar kala duwan magaalada Baardheere waxaa ku yaala jaamacadda Gedo ee kulliyadda farsamada Baardheere ee loo yaqaano Baardheere Polytechnic ururo waxbarasho oo dadaal muuqda ka wada gobolka Gedo ayaa jira waxayna maamulaan iskuulo hoose dhexe ilaa iyo sare waxaa ururadaas ka mid ah Hirda Seho GEDO iyo Markaley Foundation gobolka Gedo degmooyinkiisa iyo sawiradiisa ayaan hadda idiin soo gudbin doonaa daawadayaal u diyaar garooba inaad daawataan sawirada degmooyinka gobolka Gedo gobolka Gedo sidaan hore idinkugu soo sheegnaba waa gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya ugu masaaxada weyn markaana waxaan ka bilaabi doonaa degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gedo iyadoo ay jirto in gobolka Gedo uu yahay gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya ay ka soo baxeen siyaasiyiinta ugu waaweyn sidii madaxweynihii Soomaaliyeed xilligii kacaanka Maxamed Siyaad Barre si la mid ah gobolka Gedo waa gobol doorashooyinkii 60-maadkii ilaa iyo 50-meeyadii mug weyn ku lahaa xagga siyaasadda Soomaaliya degmooyinka gobolka Gedo uu ka kooban yahay waa 7 degmo waxayna kala yihiin sida tan soo socota sawiradooda iyo sawiradoodii oo la socdaba waxaa ugu horeysa degmada caasimadda ah ee Garbaharey degmada ku xigta waa degmada beled Xaawo degmada ku xigtana waa degmada Baardheere degmada ku xigta waa degmada Luuq degmada xigtana waa degmada Buurdhuubo degmada xigta waa degmada Ceelwaaq degmada xigtana waa degmada Doolow degmooyinka 7 ah ee gobolka Gedo waa kuwa daawadayaal sida aad u daawateen muuqaalkan aad iyo ugu mahadsantiin wixii talo iyo tusaalaha qaybta hoose ee commentiga ku reeba
fadlan muuqaalka like saar, subscribe saar channelka, furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada kale ee xiisaha leh ee gobolada dalka iyo kuwa kale ee aan idiin soo dhigi doono barteedan Dhimbildhisa. dhammaantiin waxaan idin leeyahay daawadayaal guuleysta.